kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qaybtii saddexaad barnaamijkii taariikhda ahaa ee aanu uga hadlaynay soo gelitaankii xeebaha Soomaaliya ee gumaystayaashii reer Yurub. sidoo kale inta aan barnaamijkan ku guda jirno waxaanu ka sii hadli doonaa oo aanu eegi doonaa qaabkii qaaradda Afrika loogu qaybsaday shirkii Berlin. Ingiriisku waxa uu u soo jeediyay Sayid Barqash in uu howlgeliyo saraakiil isugu jirta rayid iyo ciidan si ay u daboolaan baahida maamulka boqortooyada ee xagga ciidamada canshuurta soo ururiya iyo kuwa qaabilsan nabad sugidda. waxa kale oo loo sheegay inuu ogolaado mashruuc uu watay nin Ingiriis ah oo la oran jiray William Beckyoos. mashruucaasi waxa uu ku saabsanaa in la abuuro shirkad saamiley ah oo uu boqorku oday u ka yahay, kaas oo dadka Ingiriiska ah xuquuq u siinaya in ay ku degaan uguna shaqaystaan degmooyinka geeska Afrika, gaar ahaanna dhulka uu ka taliya boqorka. in suldaanku uu ku baaqo in la abuuro shirkad ka shaqaysa hantida guud ee boqortooyadu leedahay, taasi oo ay ku urursan yihiin gudoomiyaha iyo qaadiga ka taliya degmo kasta, magacaabistooduna uu xaq u leeyahay boqorka. shirkadda waxaa u bannaan in ay heshiisyo ay la geli karto duqayda beelaha iyo dowladaha deriska la ah. waxaa u bannaan in ay canshuur ay soo ururiso si ay u daboosho baahida dhaqaale ee la xiriirta maamulka iyo ciidamada nabad sugidda. shirkaddu waxa ay xaq ay u leedahay in ay webiyada dushooda ku safarto. in ay ka fogaato khayraadka dabiiciga ah iyo macdanta dhulka laga helo. in ay dhisto wadooyin isku xira maamulka degmooyinka iyo kuwa Ingiriiska. shirkaddu sidii ay doonto ayay u xayiraysaa ganacsiga hubka iyo waxyaabaha maanka dooriya. waxaa shirkadda u bannaan in ay ku hubsato dekedii ay doonto iyo degmadii ay doonto in ay canshuur ay ka qaadato. suldaanka oo ka mid ah saamileyda isla markaana ah aasaasihii shirkadda waxa uu xaq u leeyahay 20% wixii faa'iido ah oo ay shirkaddu ay hesho, waana sii kordhaysaa mar kasta oo ay kororto faa'iidada shirkadda. heshiiskaasi wuxuu soconayaa muddo 70 sannadood ah. Somalay dib soo aragne Somalay dimbil iyo dab soo aragne damac kululna soo aragne igdaatay soo aragne damac kululna soo aragne igdaatay soo aragne. deegaanka Zanzibar waxa isugu yimid qoladii saamiga u heshay shirkii Berlin, waxayna ku bilaabeen boob qoyskii reer Sayid Saciid ee muddada qarniga ah ka talinaya deegaanka, waxayna jasiiradda Zanzibar ay noqotay meeshii ugu horeysay ee u dhaawacanta boobkii gumaysiga ee bariga Afrika. haddaba iminka waxaynu u gudagalaynaa qaybsashadii qaaradda Afrika iyo shirkii Berlin. sanadkii 1884 waxaa jiray shirkii Berlin ee lagu qaybsaday qaaradda Afrika, ayna ka soo qayb galeen wadamada Yurub intooda isbidaysay awood, waxaana abaabulo ka ahaa boqorkii dalka Belgium ee la oran jiray boqor Leopold II. shirkaasi ujeedadiisu waxay ahayd ilbixinta iyo horumarinta dadweynaha qaaradda Afrika, hase yeeshee loo qabtay in qolo walba ay saami ay ka hesho Afrika, laguna tixgeliyo qaybta ay heshay. sababtoo ah waxaa jiray isqabqabsi badan oo wadamadii damaaciga ahaa dhexdooda ka bilaabmay, waxaana shirkaasi ka qayb galay wadamada Yurub intooda badan, waxaana ka mid ahaa tartan ganacsi oo mid waliba uu doonayay in uu saylad u helo wax soo saarkiisa, tartan qowmiyadeed oo qolo walba oo isku af ahi ay doonaysay in ay meel ay isku ururiso si ay markaasi ula gorgortamaan qolooyinka kale ee ka soo horjeeda, tartan ciidan, kuwaasi oo xoogga saaray sidii ay u yeelan lahaayeen ciidan tiro iyo tayaba leh, waxaana ugu hormarsanaa xilligaasi dalka Jarmalka oo aad xagga sancada ugu horeeyay wadamada kale ee Yurub.
xornimada inaan dhowrno dhulka nabad ku wada joognaa dhammaanteen inoo wacane xornimada inaan dhowrno dhulka nabad u wada joognaa dhammaanteen inoo wacane iyadoo ay jiraan sababahaasi ayaa misna waxaa soo kordhay tartan dhul gumaysi oo xiisihii hore u kacsanaa hawada ku sii shareeray taasoo waddan walba uu doonayay in uu qaaradda u ka helo saamiga ugu weyn badeecadaheeda qayriin ee Afrika qaniga ay ku tahay taasoo ay la'aantood shaqayn karin warshadahooda isla markaasna ay saylad ganacsi ka helaan hadba dhulka ay qabsadaan Faransiiska iyo Jarmalka ayaa shirka la yimid in la siiyo qayb ay ka gumaystaan gudaha Afrika gaar ahaanna Congo iyo Niger isla markaasina waxa ay mucaaradeen in Ingiriiska uu ganacsi u ka bilaabo dhul uusan gumaysan xubnihii fadhiga yimid dhammaantood waxa ay calaamadeeyeen meelo ay ku ganacsadaan waxaana ka mid ahaa Congo, Kenya, Uganda, Tanzania iyo Soomaaliya wafdigii Belgium ayaa diiday in Congo ay ahaato meel xor u ah ganacsiga dawladaha Yurub Faransiiskuna dhankiisa waxa uu culays u saaray Ingiriiska in uu Niger uu ka dhigo meel ganacsigeeda uu xor yahay hase yeeshee Ingiriiska ayaa si cad u diiday arrintan shirkiina waji hor leh oo ka duwan midkii la isugu yimid ayaa ka soo ifbaxay waxaana bilaabatay in si toos ah loo qaybsado dhulkii ay lahaayeen dadyowgii Afrikaanka ahaa waliba iyagoo aanan la wargelin ayaa loo sameeyay diilimo lagu kala teedayo dhulkoodii taasoo aanan wax musaalix ah u lahayn noloshii soo jireenka ahayd oo ay faraaciinadii hore ka dhaxleen iyo waliba aayahooda dambe Afrikana maalintaas ayay gun noqotay qaaradoodiina loo bixiyay qaaradii madoobayd qabiilko dhan kastaba wanaageena aanu dhaqaaqno dhammaanteena dhowrsada qabiilko dhan kastaba wanaageena aanu dhaqaaqno dhammaanteena waxaana loo nashqadeeyey qaabka juqraafi ay Afrika yeelan doonto fadhigaasi oo loogu magac daray Berlin Act wuxuuna dhaqan galay 26 bishii 1885 qodobadii heshiiskan waxaa ka mid ahaa dawlad kasta oo Yurub ka mid ah in ay saldhig ay ku yeelato xeebaha Afrika ama maxmiyad ku yeelato waxaana waajib ku ah wadamada Yurub in ay ogeysiiso dawladaha wax ka saxiixa heshiiskan haddii kale looma aqoonsanayo sheegashadooda dawladdii saldhig ku yeelata deegaanada u dhow xeebaha waa in ay caddaysaa in ay kalsooni ay ku maamuli karto si ay u xaqiijiso xuquuqda ay yeelanayso ee ah mid ganacsi iyo mid gaadiid intaba qodobadan waxay ahaayeen kuwa sharciga u siiyey dawlad kasta oo gumaysatada ka mid ah in ay boobto intii awoodeeda ay gaarto ee dhulka qaaradda dabadeedna loo sameeyo xuduud lagu saleeyay masaaliixda dawladaha Yurub iyadoo aanan lagala tashan dadkii dhulka lahaa taasoo ujeedada ka dambeysay ay ahayd in la bilileqaysto hantida dabiiciga ah ee ay Afrika hibada u helaan iyagoo aanan waxba u celin nuxurkii heshiiskan waxa lagu tilmaami karaa madal ay ku danfushadeen dawladaha Ingiriiska Faransiiska Jarmalka Talyaaniga iyo Ruushka dadka kale ee markaa xorta ahaa ee shirka fadhiyay waxay ahaayeen kuwa marqaatiyaal ah oo loogu talagalay inay u sacabiyaan dawladaha kor ku xusan waxaana laga saxiixay dhammaantood in ay qayb ay ka ahaayeen dawladihii shiray iyo in ay fuliyaan heshiiskii laga saxiixay Somalay dhimashiyo dhib soo aragne Somalay dhabdariyo dhax soo aragne akhyaaray
intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijkii taariikhda ahaa ee aanu uga hadlaynay soo gelitaankii xeebaha Soomaaliya ee gumaystayaashii reer Yurub. barnaamijkan waxaad kala socoteen Bulqaas Media. fadlan haddii aad page-ka Bulqaas Media aad ku cusub tahay, like-ta iyo follow-da hanaga ilaawin. haddii si aad tahay macmiil soo noqday, hanaga iloobin sidoo kale in aad barnaamijkan aad share garayso si dad badan uu u gaaro ayna uga faa'iidaystaan. sidoo kale ha ilaawin in aad wixii comment iyo araadaada aad noo reebto. waad mahadsantihiin. xornimada inaan dhowrno dhulka nabad u wada joognaa dhammaanteen inoo wacaane